Inta badan waxaan aragnaa magaalooyin ka kooban guryo iyo dhismayaal aad u badan, isla markaana ay degan yihiin dad kala duwan, laakiin in ay dadka magaalada oo dhan ku noolaadaan hal dhisme waa mid khariib ah. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa magaalo dadkeeda oo dhan ay degan yihiin hal dhisme, xitaa cisbitaalada, goobaha waxbarashada, ganacsiga iyo saldhigyada booliska waxa ay ku wada yaalaan hal dhisme oo keliya. Saaxiibayaal, intaynan u guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan haddii aad tahay daawade ku cusub kanaalka, ku soo biir oo subscribe taabo, sidoo kale ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Whiter oo ah magaalo ka tirsan gobolka Alaska ee dalka Mareykanka, waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 220 qof, kuwaas oo wada degan hal dhisme. Marka laga reebo nin lagu magacaabo Powell, kaasoo ku nool guri isaga u gooni ah oo aysan la wadaagin bulshada magaaladan yar ku dhaqan. Dhismaha ay degan yihiin dadka magaaladan ma ahan guri ay ku nastaan ama ay seexdaan oo keliya, balse waa dhisme ay ku dhex shaqaystaan, waxna ku bartaan, isla markaana ay wax ka dhex iibsadaan. Dhismahan ay dadka magaalada idil ku wada sugan yihiin wuxuu ka kooban yahay 14 biyaano. Waa mid lagu magacaabo Beechwood Tower. Kama koobna oo keliya qolalka caadiga ah ee dabaqyada dadka degaan, laakiin waa mid gudihiisa laga helayo waxyaabaha aasaasiga ah ee dadka magaaladan. Wuxuu leeyahay qayb booliska joogaan, qayb suuq laga adeegto ah, qayb maktabad wax lagu akhristo ah, qayb u gaar ah carruurta oo ay ku ciyaaraan, qayb hoteelo ah, qayb dharka lagu dhaqo, qayb daawooyinka lagu gado, isla markaana dadka lagu dabiibo, iyo qayb wax lagu barto. Laakiin lagama helo dhismahan maqaayado. Haddaba sababtu maxay tahay? Waa kuwo ku tiirsan kalluumaysiga iyo sidoo kale xayawaanada deegaanka, waana kuwo ku keedsada cuntada qaboojiyayaal kala duwan. Magaaladan hal wado ayaa soo gasho, isla markaana ka baxda. Midda gaarka ahna waxay tahay in wadadan waqtiga habeenkii la xiro, waxaana maalintii isbedela jihada wadadan ee bixidda iyo soo gelidda. Magaaladan falal dambiyeedyada ka dhaco waa kuwo aad u yar, balse ma ahan sababta ka dambeysa in dadka magaaladan tiradoodu yar tahay. Sababtu waxay tahay midnimada ka dhaxayso dadka magaaladan. Sidoo kale waxaa suurtagal ah qofka dambi kala in booliska gacanta ku dhigaan intuusan dhismaha ka bixin. Xitaa haddii uu dhismaha ka baxo, ma jiraan dhismooyin badan oo magaalada ku yaalaan, isla markaana isku qarin karo. Carruurta dhismahan degan, haddii aad macallin u noqoto, waxaa laga yaabaa in saq dhexe qol kuugu soo garaacaan si aad ula xaliso ama uga jaahil bixiso sadaro ka mid ah casharka aad siisay. Laga yaabaa inaad isweydiinaysaan waxa ku qasbay dadkan inay hal dhismo wada degaan ayadoo dhulku ballaaran yahay. Gobolka Alaska ee waddanka Mareykanka wuxuu ka mid yahay 2 gobol ee aan ka dhex muuqan khariirada waddanka Mareykanka ee goonida ugu baxsan. Wuxuu leeyahay gobolka cimilo la yaab leh. Xilliga qaboobaha waxaa aad ugu badan barafka. Cimiladan ayaana ka dhigtay gobolka ugu qabow gobollada Mareykanka. Magaalada Whiter ee ka tirsan gobolkan, isla markaana dadkeedu ay degan yihiin halkan dhisme, wuxuu baraf ka daboolaa ama uu ka sare maraa 1 mitir iyo wax ka badan, waxayna saacaddii xawaareysaa dabeesha 62 mayl. Balse intaan kama dambeyso in dadka magaaladan degaan hal dhisme. Sidoo kale waxaa ku nool magaaladan xayawaano khatar badan oo dad cun ah, waana sababta carruurta loogu sameeyey meel u gaar ah oo dhismaha ka tirsan. Laakiin su'aashu waxay tahay, maxay dadkan halkan ka soo dooneen ayagoo heli kara inay degaan magaalooyin kale oo Mareykanka ah? Su'aashan jawaabteedu waxay u laabanaysaa dagaalkii labaad ee adduunka oo ku beegan markii la asaasay magaaladan si ay u noqoto xarun ay leeyihiin ciidanka Mareykanka. Dadkan halka dhisme degan ma ahan kuwa doorta magaaladan, ee waa qaraabada iyo carruurta ay dhaleen shaqaalihii iyo ciidankii lagu asaasay magaalada.